xafladan ballaaran oo ay soo abaabuleen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ku nool ardayda jaamacadaha ka barata dalka Suudaan oo lagu soo dhaweynayay safiirka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay dalka Suudaan mudane Maxamed Cabdullaahi Ugaas Faarax iyo habeenkii xalay ahaa waxay ka dhacday howlka weyn ee jaamacadda Afrika ee magaalada Khartoum ee dalka Suudaan xafladan ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo ku dhawaa kun qof ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiir dawladda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Dr. Ibrahim Suleymaan Xaaji Nuur iyo aqoon-yahano oo ku sugan dalka Suudaan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha jaamacadda Nilan ee magaalada Muqdisho ugu horreynna waxaa goobtaasi ka hadlay aadan cabdi sani oo ku hadlayay magaca jaaliyada Soomaaliyeed dalka Suudaan waxa uu ka yiri goobtaasi isagoo ka hadlayay haddaan ururka ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyada Soomaaliyeed iyo safaaradda iyo waxa dhanba waxaan sugnaaday Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxaa dhamaatay wax la yiraahdo ixtiraam waxaa dhamaaday kala dambeyn waxaa dhamaaday isqiimeynta mugga qofka uu leeyahay in la siiyo ayaa dhamaatay waxay ku dhamaatay macaani fara badan oo waqti soo jiitay qaadatay ajyaal baa luntay oo yani dhaxalsiin lahayd kuwa maanta taagan heerka la soo gaaro sababay ilmaanada ku jira saaxiibkay daryeelkeygana sidoo kale munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin aad u tiro badan waxaana ka mid ahaa mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan mudane Ibrahim Goore Maxamed والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحتى تعرف السلام عليكم وكذا صوماليين لا تعرف على الصوماليين ورحمة الله وبركاته ورجعنا ورسول الله أما ممكن برياتي وبرياتي وكل سنة ورحمة الله. أنت الحمد يعني سيدنا الواجب أنه حضرك xafiiska hidaha iyo tacliinta sare ee safaaradda Soomaaliya dalka Suudaan oo munaasabadan soo abaabushay ayaa waxa uu uga hadlay qaybsanaha safaaradda Soomaalida dhanka waxbarashada hidaha mudane Cabdiqaadir Maxamuud Cali Guulane isbedel safaaradda ka bilaaway isbedel jadiid oo dhashay safaaradda Soomaaliya Suudaan waxaan ogaatay safaaradda Soomaaliya waxay u furan tahay ardayda Soomaaliyeed ee maanta wujuuda niyadka horteeda ka muuqato safaaraddu waa idinka idin furan tahay safaaradda idinka idin shaqeysa hadaladaas waxaa kasoo xigtay safiirka Soomaaliya darteed waxaan maleynayaa waa safiirka ugu horreeyey ee hal maalin u qasista inuu qaabilo ardayda Soomaaliyeed iyadoo uu xalinayo mashaakilka haysto iyadoo duruuftooda xalinayo iyadoo qalabtay qaadanayo waa safiirka ujeedinaya mutawaadica waa safiirka ujeedinaya hadal qaranka inuu matalo diyaar ku waa safiirka ujeedin marka maadaama anaga laga matalo marka waxaa anagana aan rabnaa in nasiixooyinkiin iyo talabixinkiina maadaama uu diyaar leeyahay waxaan idinkugu bishaarinaya inuu yahay safiirka dimuqraadi ugu dambeyntiina safiirka Soomaalida ee dalka Suudaan mudane Maxamed Cabdullaahi Ugaas Faarax oo si aad ah looga dheehan karay wajigiisa farxadda iyo reeraynta uu dareemayo iyo sida ay ugu faraxsan yahay sidii ay isku duunaayeen dadweynihii soo dhaweynayay ayaa isagana hadalkaasi ka hadlay waxaana ereydiisa ka mid ahaa anagoo sharafteen calankeen iyo waxaan meeshan u joognaa ilaalinayna waxaan diyaar mar walba ah inaan qabanno waxa lagu suuragal laakiin waxa jira waxyaabo mararka qaarkood aan laga wada wartagin oo qof ama dhalinyaro ay inta la yimaadaan waxaan degdeg la igu sameeyo taasoo laga yaabo
inay magaceena calankeena iyo safaaradda waxa dhan dumiso marka mararka qaarkood may haddaan idhaano ma naga ah xumaan waa ilaashiga magaceena qarankeena isuusan u dumin laakiin waxa la wixii kala suuragala annaga meesha u joogna iyo loogu yimaada soo qasho iyo waa jiraan waa soo dhaweyneynaa taasna waxaa jirta aniga ruuxadeedu maalin isbeshara maalin guuriya maalinta arbacada inaan idhi wax badan oo kale ma samaysan maalintaas waxaan diyaar u ahay inaan communitiga ardada iyo jaaliyadada aan faragno marka haddii naan ogeyn haddana ogaada fadlan xafladan habeenkan loo sameeyey safiirka soomaalida dalka suudaan mudane maxamed cabdullaahi ugaas faarax waa midii ugu horeysay ee loo sameeyo safiir soomaaliyeed ee dalkan suudaan yimaado iyadoo uu ahaa safiirkii kan ka horreeyeyna axmed macalin fiqi oo imika agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee dalka soomaaliya imika jooga fiidow maxamuud fiidow t v-ga qaranka s n t v alkhartuum suudaan